haddaan qaadka inaha ku koobo oo masalada labaad ee yare lay dhiibay tilmaamo oo ku saabsiisan shiishadda intaana shiishad ka warramayn malaa inaan dee sigaar wax yar ka tilmaamnaabaa roon sigaarku maanta cilmiyan waa maadooyinka sida fiican loo baadhay waxay caddaynayaan 400 oo maado inay ku jiraan sigaarka yara la qiiqinayo 400 oo maado FDA-ga Maraykanku waxay u ogol yihiin 599 additive baa loo ogolaaday in lagu dari karo oo legal ah oo lagu dari karaa 400 oo maado wax gaadhaya ayaa ku jira bay yiraahdeen qaar ka mid ah haddaan idin sheego u fiirso waxa ku jira maadooyin sunah waxa ku jira aan idin tiriyo qaybo ka mid ah sigaarka qiiqiisa la cabayo waxa ka mid ah waxyaabo ku jira ammonia ammoniyadu waa waxyaabaan musqusha lagu maydho waa detergent musqulaha lagu maydho waxa ka mid ah acetone ama acetone acetonku waa solvent waa waxyaabahan mudiibka wax lagu dhalaaliyo مثلا waxyaabo loo isticmaalo waxa ka mid ah dumarku xamuurada ay marsadaan bahaladan la iskaga maydho acetone ka samaysantay waxyaabahan lagu maydho ee lagu dhalaalinayo xamuuradan yar ay dumarku marsadeen acetone ka samaysantay waxa ka mid ah toluene yana waa mudiib kale waa solvent kale oo industrial warshadaha lagu isticmaalo waxa ka mid ah ilaa iyo 6-7 maado oo la wada ictiraafsay inay ka mid yihiin mawaad musartana ama carcinogenic substances mawaadda keenta kansarka pyrin baa ka mid ah urethane baa ka mid ah naphthalene baa ka mid ah cadmium baa ka mid ah cadmiumka ma taqaanin qiiqa sigaarku ku jira waa baaterigan gawaadhida bahal ku jirta baateriyadan gawaadhida inuu ku kaxaysano bahal ku jirta weeyaan cadmiumku waxa ka mid ah dibenzofenadrine waxa ka mid ah maadad mushaca xataa radioactive qaar ah polonium 210 baa ka mid ah oo maada mushaca maada radioactive leh waxa ka mid ah sumo مثلا maadadan arsenic la yiraahdo arsenic waa poison lethal poison weeyaan waa sunta quraanjada cad markay ku qaniintay kugu reebto quraanjadana cad sumaha markay dadka qaniintay ku reebto waa arsenic baa la yiraahdaa waxa ka mid ah naftaliintu waa sun kale baashan yar ee dharka ku xoqxoqataan sunta ku jirta weeyaan waxa lagu laayaa dadkan jirkeenu markuu gaboobo xasharaad baa jira dusheena iska fuushan oo cuna dadkan allergic noqda baa marka allergic ku noqda marka bahashaas al-athaba af carabiga al-athaba yiraahdaan qaatil al-ath weeyaan waa xayawaanada sariiraha korkooda saaran carruurta yar ee allergic la yiraahdo laga bedelo sariiraha waa xayawaanka saaran sunta lagu laayo ayaa ka mid ah waxa ka mid ah DDT caadiga ku jirta qiiqa sigaarka waxa ka mid ah carbon monoxide iyo carbon dioxide labaduba waraaqdiisan sare gubanaysa carbon monoxide baa ka yimid carbon monoxide waa qiiqan uu soo daaya gaadhigu inta aanu waliba oxygen-ta dabadda la kulmin aanu dioxide ka noqonin ee monoxide ka weeye waana sun sidiisa waxa ka mid ah methanolku waa rakidyadan cirka loo diro shidaalka lagu shido ayaa ka mid ah waxa qiiqa sigaarka ku wada jiraan waxa ka mid ah butane gas wala cadan yara la shido gaaska lagu shito shidaalka laga soo dhex saara ka mid ah waxa ka mid ah phenyl chloride waa plastigiska ladaayinka plastiga marka la sameeyo maada ka mid ah mawaadda lagu sameeyo waxa ka mid ah mawaadda ku jirta gaasiskan meelaha wax lagu gowraco waxa jira xayawaanada qaar ay bakhtiyaan oo gaas lagu dilo gaasiskaasi sunta qaar ka mid ah ku jira yani kullu hada aan sheegayo haddaad Google Imageska gashaan ama YouTube aad gasho waxaad arki doontaa iyadoo xabad sigaara inta la sawiray bahal sumahanoo daasada ku jiraan ay dhinac kaga wada sawireen oo la tilmaamayo waa masaa'il aan muran ku jirin waxa la rumaysan yahay maanta kansarka ugu tirada badan ee dunida ka dhacay laab ku dhaca inuu ka yimaado qiiq sigaarka inaynu isku
maanta ma aha mas'alo muran ku jiro inuu boysi yahay bale waxa la leeyahay 600 oo kun oo qof buu dilaa oo ah sigaarka salbiga ah ka cabaya mooyaan kan soo afuufay dadka ay la nuugayaan kuwa u dhinta 600 oo kun dunida gaadhaya bay leeyihiin sigaarka caadiga ana dunida 5 milyan dad ah buu ka dilaa bay yiraahdaan shiishadu hadaba ma ka gadisantahay meeshaan u socday waxay ahayd shiishadu miyay ka gadisantahay maya shiishadu waa tubaakadii saddex nooc bay u isticmaalaan wala tubaaka khaliya saarta bahasho ku gubta oo dhuxul saara qolo tubaako munakaha intay xagga dambe galaan bay khamiiriyaan waxyaaba lagu khamiiriyo waxa kamida khadkan wax lagu daabaco madbacadu khadka isticmaalaan waa khad yaro dhalada yaro inta waxa laga yaabaa dhowr kun oo kitaab inay daabacdo kaasaa lagu daraa lagu waxyaaba lagu khamiiriyo kamida waxa kamida nakhaadka frutiska ama tufaax ama nacnaac ama waxaasi nakhaadkaasa kamida waxyaabaha ay ku sameeyaan laakiin shiishadu miyay ka gadisan tahay shiishadu kama gadisana saddexda maadde ugu khatarsan ee sigaarka ku jira waa nicotine soo ma taqaaniin nicotine waa safiirkii faransiiska sigaarka u doodi jira baasha loogu magac daray ee lashboon deganaan jiray waa nin faransiis magacii nicotine-ka kow iyo daamurka maxaa tidhaahdaa laamiyeri miyaa la yidhaha xamar baalkan lagu dhiso waddooyinka ya laami okay waa qatraan waa daamur iyo carbon monoxide waa saddexdaa ugu khatarsan ee ku jira bahalka ee mawaadoodu tiro badantay kuwa kale aynu sheegano dhamma waa khataro waa ku jiraan laakiin quantity-ga ku jira ayaa yar laakiin saddexdan maaddo quantity-ga ku jira badan shiishadu waxay leeyihiin kow carbon monoxide-ka ku jira wuu ka badan yahay ka laga cabo qofka shiishada caba carbon monoxide-ka uu cabaa wuu ka tiro badan yahay ka sigaarku cabo waayo ka sigaarka uu cabaa wuxuu ka yimaadaa waraaqda yar gubisteeda laakiin kani wuxuu ka imanayaaba ilaa dhuxusha lafteedii ilaa dhuxushii baad nuugaysaa oo qiiqii dhuxushaad nuugaysaa maadaama aad qiiq dhuxuleed nuugayso carbon monoxide-kaad cabbaysaa waxay leeyihin 20 times buu ka badan yahay ka sigaarka laga cabo waa marka koowaad waana maadda musartana waa maadooyinka kansarka laga qaado waxaa kaloo ka mida bay leeyihin nicotinka iyo daamurka ku jira iyana way ka tiro badan yihiin labadaba waxaan jeclahay inaan waxoogaa ka tilmaamo shiishadu dadka badh horta shiishada iyo sigaarka waxa qudha u dhaxeeyaan odhan karee muuqda waa filtrationka waa qaabka loo filter gareeyay labada sigaarkana buush yar baa la dhex mariya u filtara tanna biyaa la dhex mariya labaduba waxay filter gareeyaan oo badani ma jiro waxa ugu badanee labaduba ay filter gareeyaan waxa weeyaan in daamurka ka mid ah waa sababta ay biyaha shiishaduna yalowga u noqdaan sigaarka dabadiisuna ay yalow u noqoto maadooyinka ku jira sigaarka dhammaantood waxaynu leenahay waa ku jiraan shiishadana faraq u dhaxeeyaa ma jiro waxa qura faraqaynu nidhi waxa weeyaan qaabka loo sameeyo filtrationka ama midna biyo dhex mara midna buushkan yare la cabayo dhex mara labadaba waxan ka casi waa daamurka ama laamiga markuu meesha tan dhex maro qayb ka mid ku hadhaa casaada baxthi ay sameeyeen ama cilmi baadhis New Zealand nagu sameeya waxa la tilmaamaya sigaarka la cabo sanadkii daamurka ku jira bay yiraahdeen haddii waddo lagu dhisi lahaa 5 kilomitir iyo badh waddo baan u baahateen daamurka leen lagu dhiso bay yiraahdeen sigaarka bini'aadamku cabo kaliya lagu dhisi kari lahaa waa daamurka ku jira waxay tilmaamaan nicotinka ama sunta nicotinka ee baal ku jirta horta daamurka intaanan dhaafin daamurka oo qura haddii isaga chemically la baadho konton maaddo oo sababa kansarka ku jira daamurka kaliya konton maaddo oo sababa kansarka ayaa ku jira daamurka dhexdiisa
maadadan kale nikotiinka aan tilmaamayno ku jirta nikotiinka sidiisuba marka hore waa maado lagu laayo cayayaanka beeraha iyo dhirta yaryar labadaba waa lagu dili karaa beeraha marka lagu shubo dhirta yaryar ka soo horbaxdana waa gumaadaysaa xayawaankana waa gumaadaysaa walidaalka waxaa la yidhaahaa 60 miligram oo nikotiina haddii wariidka lagaa siiyo haddii xididka lagaa siiyo khalaas oo dhimanaysaa laakiin inuu jidhku absorb gareeyo sambabka laga absorb gareeyo ayaa quantity-geedu yaryahay that's why aad u nooshay weli laakiin haddaad sigaar cabbi lahayd oo xagga lagaa siin lahaa waa horay madhan lahaayeen cidi kama noolaateen qolada sigaarka cabta si kale markaynuu tilmaamno nikotiinku waa maado sababta walafka ama addictionka oo wuu ka khatarsan yahay xataa khamriga markay noqoto xagga addictionka maadaama qiiqan la cabo boqolkiiba 85 ilaa 90 buu gaadhsiisay bay leeyihiin halka khamriga ay ku qiimeeyaan boqolkiiba 15 qaadku dhanka uu ka yaryahay oo walafka qaadka waa maadooyinka la walfu ka mid yahay qaadku addictionka laakiin inaad qaadka iska daysaaba ka fudud inaad sigaarka iska dayso oo labada waxa adag sigaarka addictionkiisu ka adag yahay qaadka marka aan soo koobo waa xanuunkan keeno qofku inuu cimri degdego dhalinyaro markiiba madaxu caddaaday oo calaamaadkii da'du ka soo muuqdaan waa cimri degdeg sigaarku wuxuu ka mid yahay xanuunada keena cimri degdeg ah waxay yidhahdeen sigaar cabku 10 sannadood buu da'diisa ka wenyay bay yidhahdaan muuqaalkiisu waa xanuun ku dhaca wuxuu ku dhacaa bay yidhahdaan maado jiin cajiiba oo ah jiinka dib u cusboonaysiiya DNA-da qofka iyo maxay selskiisa unugiisa cusboonaysiiyo khalkhalgeliya marka sida xanuunkaasi oo kale ayuu wuxuu ku reebaa qofku inuu ka horgaboobo qofka kale oo sigaar cabku waxay dhahaan 10 sannadood buu ka weeyay da'diisa normalka ah markaan soo koobo shiishadda daraasaad badan baa maanta lagu sameeyey cilmi baadhis badan مثلا jaamacadda Virginia Commonwealth ee Maraykanka cilmi baadhis ay samaysay uu hogaaminayo professor la yidhaahdo Thomas Eisenberg oo lagu soo saaray jariidada caafimaadka yani atib alwaqaa'iga ee Maraykan waxa uu leeyahay kuwa shiishada cabba waxa ay nuugayaan ama waxa ay cabbayaan carbon monoxide iyo nicotine u bandhigaya wadna xanuunka iyo xididda engega iyo nicotine oo ah isna maadada keenaysa idmaanka markaynu soo duuduubno daraasada ama cilmi baadhistaasi waxa lagu sameeyay 30 qof oo mutatawiciina oo da'doodu 18 jir ilaa 50 jir u dhaxayso qaarna xabad sigaara la cabsiiyey qaarna shiishad baa la cabsiiyey kadib waxa la baadhayaa markay midna sigaarka cabo midna shiishada cabo qof walba dhiig baa laga qaadayaa waxa la baadhayaa dhiigiisa inta maaddo ee ku jirta siiba waxay baadhayeen oxideska carbon monoxide iyo carbon dioxide waxa jidhkaaga ku jira waxay kaloo baadhayeen nikotiinka jidhka ku jirta dabeetana waxay yidhaahdeen halka shiishada ee wacabbay wuxuu ka badan yahay kan xabadda sigaara la siiyey 48 goor يعني isagoo 48 midho sigaar cabay bay u dhigantaa walidaalka wuxuu tilmaamayaa professorkaasi Thomas Eisenberg la yiraahdo daraasadan ama cilmi baadhistani waxay sheegaysaa buu yiri nuugista la nuugo shiishadu inay ka khatarsan tahay sigaar cabista caadiga ah markaasuu daraasaadkan ingiriisku uu leeyahay mukaafaxatu tubaqa la dagaalanka sigaarka iyana waxay soo saareen iyagoo baxthi sameeyay inuu in badan ka badan yahay carbon monoxide iyo bahlada uu nuugaya waxa ka sigaarka cabaya caadiga uu nuugayo waxay qiyaaseen dhiigiisa mid walba inta ku jiraysa halka qofka caadiga ah bay yiraahdeen 3% wax ku dhow dhiigiisa oo dhami aanu si caadi ah u shaqaynaynin ka sigaar cabka fudud boqolkiiba 20 baan dhiigiisa si caadi ah u shaqaynaynin carbon monoxide ku cabay daraadeed ka sigaar cabka weyn baakiriya wax ka badan cabba boqolkiiba 30 ilaa boqolkiiba 4 dhiigiisa ka mid ah normal u shaqaynaynin bay tilmaamayaan Dr. Warren wuxuu tilmaamayo kale 10 miligram oo tubaako ah oo shiishad lagu cabo 30 daqiiqadood waxa ay keensanaysaa buu leeyahay 4 ilaa 5 midho sigaar u dhigantaa
buxuusta noocan laga sameeyey waxay ku xidhantahay tubaakada nooceeda qofka iyo qaabka uu nuugayo iyo bahasha iyo qaabka ay u samaysantahay marka qaar baa waxay gaadhi karaan bay leeyihin ilaa 400 oo xabbo oo sigaara normalitygu wuxuu u dhaxeeyaa bay leeyihin 48 xabbo ilaa 70 midh oo sigaara marka dadka shishada cabaa waxay is leeyihiin waad ka khatar yartayeen kuwa sigaarka cabaya kama khatar yaree uu ka khatar badan yahay dhowr sababood ba uga khatar badan yahay dosage-kiisa oo dhan isagoo horta mar buu wada qaataa ka sigaarka cabaya waxa laga yaabaa inuu waqti u dhaxdhaxaysiiyo laakiin kan hal saac buu fadhinayaa oo halkaa saac oo dhan qiiq buu cabayaa waa marka labaadee sigaarka nawcun maa qaabun baaba loo kontaroolaa waxa lagu darayo laakiin xashiishadda si loo kala loo sameeyaa shiishadda tan la nuugayo si loo kala ayaa nokahaadkan iyo waxaan lagu darayo lagu sameeyaa marka control kuma jirto saa daraaddeed way ka khatar badantahay bay leeyihin daraaso sacuudiga ay samaynayeen jaamacad ku taalla 4 sannadood socotay waxay ku qiimeeyeen 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa bay baadheen way kala nooc iyo gadisantay bay leedahay waana kala khatarsantay laakiin marka la isku celceliyo bay yidhaahdeen 8.32 miligram nicotina ayaa cala ra's ugu jira waxay ku qiimeeyeen oo ay tilmaamayaan shiishadaasi inay u dhiganto 70 midh oo sigaara sigaarku dunida wuu soo yaraanayaa eeshiya iyo caalamul muslimiinkana wuu sii tiro badanayaa reer galbeedku horey u ogaadeen sigaarka iyo dhibuhu leeyay dabeetana qawaaniin badan baa lagu xadeeyey dadkii wacyigelin badan baa la siiyey brogaraamo badan baa laga sameeyey idinkana waxaan idin leeyahay carwaa ninka google image intuu galo ama youtube galo sawirada xanuunada laga qaado intuu daawado sigaar dambe caba intuu daawado dadka xanuunka ku dhacay qof walba clinican in lagu tusayo markii uu baakirka hore cabay sidoo noqday markuu intaan cabay sidoo noqday kansarka ku dhacay inta xanuuna ku dhacay ay tirinayaan talab bixinta dhakhtarka qaar diiday iyo say ku dambeeyeen haddaad aragto yacni maad istirahdeen waxba qof bini aadami uu dib ugu noqon karaya laakiin caalam alislaami iyo eeshiya inteeda badan waxaad moodaa sigaarku inuu ama qiiqa cabistu inay si hayru caadiya noqotay sacuudiga oo meeshay diintu ku soo degtaya 15 bilyan oo sigaaru cabaa sanadkii waxay yidhaahdaan 8 bilyan oo lacagu ku isticmaalaa masar 80 bilyan oo sigaar ay cabtaa sanadkii bay yidhahdaan dunida waddanka ugu badan marka dadka degan iyo inta sigaar cabto la soo eego waa turkiga 7% baa cabaa وعالم الإسلامي وحن كورميا دول كعربيت بيدهدان لما بقولوا بليون أو سيجارة عبان سنتكي أو أنت بدن مريكان يكيب سدان مركا لا يسكت دربيده عند دولتها عربيت وحي العكب بحيان وحبرشدة هي عافمات كل يسكت دري أنت سيجاركو عبان بك بدن هذا قياس أمد مسلمة ووزارة وحبرشة وحي العق استعماشه iyo wasaaradda caafimaadku waxay lacag isticmaashay marka la isku daro wasaaradda sigaar cabistu ka badantay waa caalamka carbeed aynu ka nimi caalamkii muslimiintu saasuu u yaallaa runtii hay-al caalamiya waxay ku tilmaamaysaa dunida 6 daqiiqiyo barhkii kastaba in qof sigaar uu u dhinto 6 daqiiqo maaha waa 6 sekond 6 sekond iyo barhkii kastaba inuu qof sigaar dilo ولذلك الجمعية الأمريكية لأطباء الأورام أما أورك مريكان كي دخاتيرتا حنوندا برردا شري مؤتمر إلى هايين أيا وحكا هادلي جون سفرين نين لا يدهدو مركاسو وحو يدي سيجار عبستو أما قيق عبستو بو يدي وسلاح الدمار الشامل الوحيد الذي يهدد البشرية عبر مختلف أنحاء الأرض WMD بولي WMD كما تغانين weapons of mass destruction بيد هذا وحلاي hubka qura ee wax gumaada ee dunida lagu isticmaalay bini aadamka khatarta ku haya waayo nuclear dunida 5 milyan ka dila sanad walba miya jira
sigaarka iyo inta u dhibataa 5 milyan bay gaadhaa baa la leeyahay qiiqiisa inta u baktida daraaso kale oo Maraykanku ay sameeyeen waxay tilmaamayaan dunida 30 milyan oo qof oo cusub ah sanad kasta sigaarka barta bay dhaadeen oo ku biira qaafilatul mudkhiniinka waxay 15 sannadood cilmi baadhis la sameeyay oo 4572 qof lagu sameeyay ayaa waxay leeyihiin xataa ka cabayada iyo kuwan agtooda lagu cabay waxay aad ugu dhowdahay bay leeyihiin inay diabetes noqdaan xanuunka diabetesku inuu ku dhaco markaan soo duuduubo shiishadu sigaarka inay ka khatarsantay mooyaane kama fiicna shiishada iyo sigaar cabistuna bulshada waxay ku hayaan dhib bulsheed mid caafimaad mid jidheed mid nafsiya khalaaya dimaaq xataa sigaarku wuu dilaa qiisa inta u baktida daraaso kale oo Maraykanku ay sameeyeen waxay tilmaamayaan dunida 30 milyan oo qof oo cusub ah sanad kasta sigaarka barta bay dhaadeen oo ku biira qaafilatul mudkhiniinka waxay 15 sannadood cilmi baadhis la sameeyay oo 4572 qof lagu sameeyay ayaa waxay leeyihiin xataa ka cabayada iyo kuwan agtooda lagu cabay waxay aad ugu dhowdahay bay leeyihiin inay diabetes noqdaan xanuunka diabetesku inuu ku dhaco markaan soo duuduubo shiishadu sigaarka inay ka khatarsantay mooyaane kama fiicna shiishada iyo sigaar cabistuna bulshada waxay ku hayaan dhib bulsheed mid caafimaad mid jidheed mid nafsiya khalaaya dimaaq xataa sigaarku wuu dilaa xataa waxaa la leeyahay environmentka iminka la leeyahay carbon monoxide iyo carbon dioxide kan la sii daynaya hal la yareeyo sigaar cabistu waa waxyaabaha ugu badan ee la sii daayay bay ka mid tahay bini aadamku sigaarkan uu buufinaya environmentka waxyaabaha qarribe ugu badan bay yana ku jirta maxaan ku soo duuduubaya xukunkoodu waxaan oo dhan muxuu noqonayaa intan oo dhan waxaan idiin akhrinayay reer galbeed iyo meelahooda cilmigu waxa ay ka sheegeen haddii ay sidaasi dhab tahay balaan qur-aankana idiin sheega markaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma rasaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun waar dadka mu'miniinta ah baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxa wanaagsan aan idinku arsaaqay cuna ilaahayna u mahad celiya sigaarku miyuu ka mid yahay waxa wanaagsan iyo qiiqu iyadoo la leeyahay 400 baan markii hore dhigay maaha 4,000 oo maada ku jira la leeyahay ilaahayna quraanka wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum inna allaha kaana bikum raxiima war naftiina hadilina waa qatl batii waa dil aayara إلهي قرآن كوحين يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلهي درتي وحلبحا ولا فيهن هلاك كردين بالليل نقال أهان نينك سيجار كعبا يوحى كرون نينك صبحين تسكى صوت وصيداني وبالود يربان لا يعنو تبان باون بان قباه تبان باون صبحي مرقوري كصوبح يضبك صارة ما هذا الله هيتكا subax walba ninka 10 pound dabka iska saara waxa oran lahayd de waa ma ha qof caadi ah oran lahayd way lacag ugu gubay ninka sigaarka cabaya lacagtiina wuu gubay caafimaadkiina wuu xumeeyay wax badan buu kala qarribay kan ba ka roono kan lacag qulu gubay laakiin kani lacagna wuu gubay dib badan oo tiro badanna wuu geystay ilaahina wuxuu ina leeyahay wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ولا حد قدبنا إسراف صميننا ولا تبذروا إذن إخوتي في العقيدة السقاقاتكم مدبو ديري يبا وحكالي دراقس كالدوني ده بلشوين كاين تبادان دادك الليتا استعمالها إنك الدرقين انت الروم با استعماشا
ummad bal adigu waxaad qiyaastaa aqoon-yahankeedii culimmadeedii hore qaar ka mida dhaqaalayahankeedii maxaa la yidhahaa caaqilkeedii suldaankeedii wasiirkeedii madaxweynaheedii intuba darag cabto bal adigu qiyaas yacni wax ghariiba waxay ahayd daragga bulshada inta liidataa inay cunto oo la yidhaahdo ummadda tan darag bay isticmaashaa laakiin daraggeeda dee bulshada inta liidataa isticmaashaa laakiin bulsho higher classkeedu dabaqadeeda sare ay mudminiin dhammaanteed wadatay dabaqadeeda sare ay tahay narcotic man narcoman ay wadayiin waa wax runtii aad loola yaabo qaadiyo sigaarkaba ikhwati waa la iska dayn karaa horta qaadku isagu wuu ka fududiyey dayntiisu sigaarka wuu ka fududiyey waayo dependenska marka la xisaabinayo kuwa sare kuma jira qaadku kuwa ugu hooseeyu ku jira iska dayntooda ay fududahay sigaarkuna waa la dayn karaa laakiin waxaad u baahantahay inaad dayso dhowr shay kow ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim nadaradda aragtidaynu ka qabno sigaarka iyo qaadku marka hore inay aragti saliima noqoto waa wax fiican iyo waa wax lagu xaragooda iyo wax wakhtiga lasku sheekadaa intaad ilowdo inaad xaqiiqadiisa ogaatid markaad garato inuu waxan yahay sun aad jidhka ku dirqinayso ku buufinayso caqligu wuxuu keenayaa inaad go'aana qaadato inaad ka tagto waa marka labaad inaad ilaahay barido waa marka saddexaad inaad caziima yeelato go'aan inaad yeelato bini aadamka caqligaa hogaamiya neef xoolaa maaha qofka bini aadamkaahi saa daraaddeed waa sucuuba adayg baa ku jira in la joojiyo laakiin waa adayg laga gudbi karo qofka bini aadamka hadduu go'aan yeesho wuu joojin karayaa waana badan yihin maraykan oo qudha dhowr sannadood waxay dhahaan 30 milyan oo qof baa sigaar iska daayey sigaarka oo kii ugu sarreeyey haddii la daayo waxa ka hooseeyana waa la dayn karaa idan waxaan ku soo koobayaa wakhtiga gabagaba ahe sigaar iyo qaad waa la dayn karayaa caafimaad ahaanun baanan uga wax ka tilmaamay laakiin haddii muctabarka dhammaantii laga dhigo sigaar iyo qaad oo la isugu yeedho dhaqaalayahanadeenna iyo dhakhtaryahanadeenna iyo bulshadeenna iyo aqoon-yahankeenna waxaan isleeyahay kuma fillaadeen ka warrankiisa laakiin deriskan waxaa loogu talagalay inaynu isbaraarujinno dhaqaale ahaan haddaynu soomaalina waynu burburray waxaanu ka mid yahay sigaarku dowladaha yaryar ee soomaaliya ka dhisan qaar ka mid ah waxaa la isu qiimeeyey barjadka dowladduba ay sanadka ku shaqayso iyo intay qaadka dadku ku cuno waxa badan inta qaadka dadku ku cuno yani inta qaadka lagu cunaa waxay ka badan tahay maxay barjadka dowladaha meesha ka dhisan oo dhan taa macnaheedu waxa weeyaan waynu hanti beellay oo wayna caqli tiray oo wayna caafimaad tiray oo wayna bulshadii buu burburiyey oo guryihii buu baabi'iyey oo carruurteenna soo socota ayaa ninnimada waxay u arkayaan in qaad iyo sigaar la cuno waayo inay bulshada ku biiraan waa inay goobaha raggu fadhiya dee tagaan bulshada dadka yaryari waxay egtaan un dee dadka waaweyne waxay samaynayaan haddii madaxweynahaagu qayilayo wasiirkaagu qayilayo suldaankaagu qayilayo caaqilkaagu qayilayo dan maxaa u diidaya inanka yari inuu qayilo ama inuu sigaar cabo ilaan dabaqadii bulshada u ahayd muuqaalka kuwaasiya dabaqadii uu rabay inuu ku biiro ama inuu hiigsadaa ficladay samaynayaan wuu samaynaya walidaalik inan yar ma odhan kartid war qaad iska daa war sigaar iska daa maanta dadka aan la hadlaya waxa weeyaan waa wasiiro waa madaxweynayaal waa salaatiin waa cuqaal waa aqoon-yahan waa waxgarad waa dhakhaatiir dhakhtar intuu buufiyo ku yidhaha sigaarku waa sunbalka war dhakhaatiirta soomaaliya nusba cabaa waanu buufinaya waana dhakhtar waanu ka warramayaa inuu sun yahay waa runtii waa caqli dareer weeyaan yani waa dadkii oo maanku uu ka sii guurayo waa nooc waalida ka mid ah qof arkaya wuxuu ku dhimanayo o isticmaalaya waa nooc waalida ka mid a runtii deriskan runtii dhallinyarada waxaan leeyahay waa wax xun waxaasiya hal iska dhaafo waa yeelkana waxaan leeyahay waar ummadda tusaale u noqda oo wax kale haddaana tusaale ugu noqonaynin dhaqankaaga unugu noqo oo bilaahi calaykum wax kale haddaydan ugu noqonaynin warqaad iyo sigaarkuun iska daaya haddaa intaa soomaali ku taageertaan waxaan is leeyahay wax weyn baynu qaban kari lahayn miaal basiitaan idin siinaya waddankan turkiga la yidhaahdo magaalada istanbul la yidhahdo xaafadda faatix la yidhaahdo
masaajid baa ku yaalla saankiyadim baa la yidhaahdaa saankiyadim eraygu af turkiga macnihiisa waxa weeyaan iftarad annanii akaltu aw kaannanii akaltu waaba anigiioo wax cunay nin fakhrudiin la odhan jiro oo muslim ahaa baa dhisay ninkaasi muxuu ka dhisay masaajidka dhan waxau ka dhisay waxa la yidhi markuu suuqa soo maro nin iska zaahida buu ahaa aw naftiisu wax yaroo ay kahatay uu arko ama uu jeclaaday khudaar yaroo fiican wax yaroo fiican ayuu wuxuu idhahaa ka soo qaad anigoo cunay dabeetana intaasuu sanduuq ku ridi jiray shaah buu u baahday ama koof u baah wax yarow jeceliyu arkay ka soo qaad anigoo cabbay unbuu yidhahdaa sanduuq buu ku ridaa sanduuqii buu berigii dambe furay masaajid buu sanduuqaasi dhisay ka soo qaad anigoo qaad cunay haddaad tidhaahdo meel ku riddo intaa hadda soomaaliyaba waa dhisaynaa wixii burburay oo dhan intaasaa ku filan haddaynu isku raacno inaynu dhahno sanduuq laydhaha ka soo qaad anoo qaadka cunay oo maalintaa intii aad ku barjayn lahayd oo qura aad ku ridday waddanka dhammaantii waa dhisi karaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu